kadib geeridii aabaheed bishii February 1952 waxa si toos ah ugu soo wareegay u talinta boqortooyadii aanay cadceedu ka dhici jirin dadka qaarna ay ku tilmaamaan midii aanu dhiigu ka qalali jirin boqortooyadaasi oo gacanta ku hayn jirtay 4 meelood oo meel dadka dunida ku nool maalin ka mid ah maalmihii ugu qabowga badnaa bisha Juun kadib 16 bilood oo la diyaarinayay ayay 100 milyuun oo ruux tiifiyada caalamka kala socdeen caleema saarka boqorradda da'da weyn ee dalka Britain Elizabeth II waxaana halkaas ka bilaabmay xukunkii ugu dheeraa ee boqor ama boqorade hayso taariikhda Britania dhulka Somaliland oo ka mid noqday dalalka ay boqoradu taladooda qabatay xilliga ayaa waxa ka anbabaxay wafti lagu marti qaaday caleema saarka xafladda boqorradda sida uu u sheegay Xaaji Cabdiwaraabe idaacadda BBC-da qaybta dibadaha la hadasha barnaamij taxane ahaa oo ka bixi jiray kaas oo lagu magacaabo Marking Queen Elizabeth Diamond Jubilee Xaaji Cabdi ayaa u sheegay tafatirihii hore ee BBC-da Afrika u qaabilsanayd in maalintii caleema saarka wadaadaas xataa Hargeysa looga dabaaldegay sidii ka dhacaysay dhulalkii ay boqortooyadu haysatay 66 sannadood kadib markii madaxeeda la saaray taajka St Edwards kaasoo la sameeyay sanadkii 1661 ayay boqoradu ka warantay xafladii caleema saarkeeda iyadoo noqotay boqor iyo boqorradba ruuxii ugu horreeyay ee reer boqor ka tirsan ee ka warrama caleema saarka noocaas ah iyo culayska taashkan ka kooban dhagxaanta qaaliga ah ee diamondta u badan Is it still as heavy? Yes, it is. It weighs a ton. It's very solid, isn't it? It's difficult to always remember that diamonds are stones, so they're very heavy. Yes. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. But once you put it on, it stays. I mean, it just remains itself. You have to keep your head very still. Yes. And you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break. It would fall off. taajkani inkastoo uu yahay xudunta caleema saarka boqorradda haddana waxaa jira waxyaabo kale oo dhaqan iyo diin ahaan laga soo gaadhay kuwaasi oo ay ka mid yihiin seefta boqorradda ee qaaliga ah faraantiga la yaabka leh iyo saliidda caleema saarka inkasta oo ay jiraan dad Soomaali ah oo lagu marti qaaday qasriga reer boqor ee Buckingham Palace haddana weli anigu ma maqal qof halkaas tagay oo u sharaxay sida uu u sharaxay wariye Saleebaan Daahir Afqarshe oo BBC-da ka tirsanaan jiray guriga boqorradda marka albaabka laga galo waxa halka hore ee daaradda ee ka horeysa daatan qururux yaryar oo marka aad ku soconayso shamax oranaya dabeedna waxa aad gelaysaa gurigii oo khadifado cas oo aad u qurux badan lagu goglay isla markaana alaabta guriga dhexdiisa taala iyo isla markaa gidaarada waxyaabaha ka soo daldalan ee sanamyada oo kala ah aad ugu fajacayso dadku iyaga oo qof waliba aad yar uu socdo oo isleeyahay uu ka jactadin suurka aad gashan tahay ayaa dadka oo dhammi waxa ka muuqata farxad iyo qurux iyo haybad waxaana jira oo aad marka arkaysaa beerta marka aad madaxeeda soo gaadho koofiyad miidhan oo safan waayo haweenka looma ogola koofiyad la'aan inay ugu tagaan boqorradda raguna waxa ay sitaan nin waliba suurkiisii ka ugu qurux badnaa iyada oo markaa ragga qaarkii ay sitaan intooda badani suud daba dheer oo maamuus loogu talagalay in loogu tago maalmaha caynkaas oo kale ah ee ninkii nasiib leh boqorradda uu u tegayo cabbaar markaan meeshii warwareegay ee aan arki waayey ayaan gadaal eegay mise boqorraddii oo gashan dhar xamuuradaysan oo aad u qurux badan iyo koofiyad u eg iyo iyada oo marka uu dhinac taagan yahay ninkeedii the Duke of Edinburgh ayaa dabeedna isa soo taagay guriga albaabkiisii marka ayaa dadkii oo dhammi sare joog inta si degdega loogu kacay ayaa koox halkaa muusiqa ka garaacaysay waxa ay ku dhufteen muusiqada astaanta u ah dalkan Ingriiska God Save the Queen ilaahow boqorradda badbaad
sida loo badan yahay dadku way wada jecel yihiin mansabka maalka magaca iyo maamuuska adduunyo sidaasoo ay tahay laguma waaro weligeed in badan oo la dhowrayay maamuuska u gaarka ah reer boqor iyo boqorradda gaar ahaan sida inaanad hadal ilaa ay hadasho wax cunin ilaa ay cunto aanad ugu dhowaan aad faro madhnaan aanad ula tegin iyo si walood u daalan tahay aad istaagto marka ay meel kuugu soo gasho waxaa jira warar ay heleen wariyayaasha xogta durugsan heli kara kuwaasoo helay jadwalka aaska boqorradda maadaama ay haddeer da'deeda awgeed geeri sugto iska tahay boqorraddan intii ay xilka haysay Maraykan 13 madaxweyne iska bedeleen Ingriiska 13 ra'iisul wasaare soo mareen ee dhalatay 1928 ayaa si faahfaahsan loogu xusay jadwalka min maalinta ay dhimato waxa la samayn doono ilaa iyo maalinta 12aad cidda shaacin doonta geerideeda qasriga ay ku dhimato iyo waxa laga yeeli doono haddii ay dibadda Ingriiska ku dhimato sida loo soo qaadi doono sida madaxda dunida loogu wargelinayo geerideeda kulanka baarlamaanka iyo cidda la wareegaysa jagadeedii